السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتسان داودياشا كحرن برتن عالمية إجراد بيستيوب فضلا كسر هذا مركلي موقع الحساب بدن وانا قيبتي لبات تحنها تاريخ دا برلمان كسوماليا داوده هدي تاي مركادي كوغو هريسي فضلا channel كسبسكرايب صار موقع كنا لايك شير كومنتيا intaan ugu sii dar waanu dhiirigelin waana kaga mahadcelinaynaa waqtigaada quruxda badan leh. Haddaba qaybtii koowaad waxa ay noo maraysay xubnuhu waxa ay ku iman jireen hab magacaabid nominina ee ma ahayn kuwa doorasho dadweyne toos ah ku yimaada. Magacaabidaasoo uu xeer ku meelmarin jiray xaakimkii idaariga Talyaaniga ahaa ee Soomaaliya amministratore soo jeedintuse waxaa lahaa qaybaha bulshada ee xubnahaasi ay taliyeen. Xubnuhu goluhu Consiglio Territoriale waxa ay ku iman jireen 5 qaybood oo kala ahaa: 1. xubno ka socda gobolada dalka Rappresentanza Regionale. 2. xubno ka socda xisbiyada siyaasadeed. 3. xubno ka socda qaybaha dhaqaalaha. 4. xubno ka socda hidaha iyo dhaqanka Rappresentanza Culturale. iyo 5. xubno ka socda jaaliyadihii shisheeye ee deganaa dalka Rappresentanza della Comunità Minori. wahagaag kusoo dhawaada qaybta labaad ee taxanaha taariikhda baarlamaanka Soomaaliya. xubnuhu ma aynan lahayn mushaar ama gunno bileed oo loo yaqaano indhentintia parlamentare masingle. waxay qaadan jireen gunno fadhi marka ay shir ka soo qayb galaan Getone de Brenza iyo qaraadka uga baxa safarka ilaa xamar si ay shirarka golaha uga qayb galaan. amarka ordinanza nambarkiisa 3 RBE ee Febraayo 6 1951 soo baxay ayna ku cadahay. shirarka golaha Consiglio Territoriale waxaa gudoomin jiray madaxda maamulka Office Amministratore ee dowladda Talyaaniga ama sarkaal uu isagu soo wakiishay. 2 gudoomiye ku-xigeenno ayuu goluhu lahaa waagaas, waxa ayna kala ahaayeen Rabbi naxariista jannaha siiye Aadan Cabdulla Ismaan Aadan Cadde iyo waliba Cabdinuur Maxamed Xuseen oo ka kala tirsanaa xisbiyadii SYL iyo xisbiya Digir iyo Mirifle oo HDM loo soo gaabsho. goluhu wuxuu ku shaqayn jiray xaruntii hore ee Comando de Bologna oo ku tiilay meeshii markii dambe laga dhisay daarta Bank Commerciale. intii uu jiray golihii lagu magacaabi jiray Consiglio Territoriale, tirada xubnuhu goluhu isbedelo ayaa hadba ku dhacayay. sanadka markuu waa 1951 oo la dhisay golihii ugu horeeyay xubnuhu waxa ay ahaayeen 35 xubnood oo isugu jiray Soomaali iyo ajaanib oo ka wakiil ahaa jaaliyadihii shisheeye ee dalka deganaa oo ka mid ahaayeen Carab, Talyaani, Hindi iyo Pakistan. sanadkii 1952 tiradii xubnaha golaha oo wali wata isla magacii ahaa Consiglio Territoriale waa la kordhiyay waxaana la gaarsiiyay 44 xubnood. sanadkii markuu waa 1953 xubnihii golaha Consiglio Territoriale waxaa la gaarsiiyay 51 xubnood. arag amarka ordinanza nambarka 22 RBE del December 21 1953. sanadkii 1954 ilaa 1955 tirada xubnuhu goluhu isbedel laguma sameyn. arag amarka ordinanza nambarka 22 RBE ee 21 December 1953. haddaba 1951 ilaa 1955 waxaa Soomaaliya ka hirgelay 5 gole Consiglio Territoriale oo mid kastaba muddadiisu ahayd 1 sano oo ilaa xad talo ka dhiban jiray shuruucda iyo xeerarka cusub ee dalka loo dejin jiray ama ra'yi iyo talo laga weydiin jiray tallaabooyinka muhiimka ah ee maamulkii Office. sanadkii 1956 waxaa la qabtay doorashadii siyaasadeed ee ugu horeysay oo dalka ka dhacda
arag amarka oo ordinanza lambarka 6 ee Maarso 1955 xubnuhu goluhu waxay noqdeen kuwo dadweynuhu soo doortaan oo tartan loo galo. Tirada golaha waa ay korortay oo waxa ay gaartay 70 xubnood oo isugu jiray 60 Soomaali ah iyo 10 shisheeye ah. xubnaha ka socda jaaliyadaha shisheeye iyagaa si gaar ah u soo xulan jiray wakiiladooda. haddaba daawade waxaa intaasi kusoo gabagabaynaynaa xalaqadii 2 ee taxanaha taariikhda baarlamaanka Soomaaliya. waxaan rajaynayaa inaad wax ka garan doonto taariikhda baarlamaanka Soomaaliya. tan iyo xubinta 3aad inta aynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo amaane Allah. fadlan subscribe saar channelka, like, share, comment-gana dhiirigelin bay noo tahay oo ha naga hilmaamin. kula dambe salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu.